السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal, waa walaashiina Caaisha. Kusoo dhawow channelkeena. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markii u horeysay aadna soo booqatid, videoga like inoo saar, subscribe inoo dheh, sidoo kale inoo share garee, commentigana faraha ku kala bixsada. haddaan nagu cusub tahay haddaa hore nala joogtayba waa idinka mahadcelinayaa waqtigiina quruxda badan ee aad ila wadaagteen. dhiirigelintiina waa idinka qabaa, aad baa idinka mahadcelinayaa. videoga like inoo dheh, waxay naga caawinayaan inuu meel dheer inoo gaadho. maanta waxaynu kasoo duraynaa bariis biryani. 2 xabo basal ah ama xabad basal oo weyn baa soo jarjaranaysaa, waad soo shiilay si fiican. inta ay kasoo shiilmayso baa sugeynaa, kadib waxaynu ku darsanaynaa waa isla arkaynaa insha Allah. basashii goorta si fiican inoogu soo shiilantay, waxaa kusoo darsanay hilib. waslad baad soo qaadanaysaa hadba inta dee yacniga aad rabtid, ama waslad ha ahaato, waslad badh ha ahaato, 2 waslad ha ahaado. waad soo jarjaranaysaa xoogaa, waxaad kasoo dhigaysaa xoogaa, soo laaleekaysiinaysaa. kadib si fiican baa xoogaa ugu shiilaynaa. marka aynu shiilo waxaa ku darsanaynaa bahaaraad ama wixii xawaashiye ah aad haysatid. bariiskani kama soo haro xawaashka, muhiimadiisu waa xawaashiyadiisa. markastoo xawaashi fiican ku darsato, markastoo dhadhan ku sii yeesho. haddana waxaa ku darsanay xawaash burbur shiidan, basbaas case. sidoo kale waxaa ku darsanaynaa sanjabiil yar. sanjabiishu waxay ka caawinayaan inuu hilibku ku jilco. filfil baa kusoo darsanay. waxaa ku darsanaynaa meat masala ama xawaashida hilibka loogu talagalay. sidoo kale waxaa ku darsanaynaa biryaniga xawaashida loogu talagalay. si fiican baa isku soo dhexgelinaynaa. marka aynu si fiican yacni xawaashidii iyo wixiiba aynu si fiican ugu shiilo, waxa aynu kusoo darsanaynaa caano garoora oo nooca beleynka, yacni caano garoora beleyna. haddii aanad haysanin kuwaas, waad isticmaali kartaa caanaheena garoorka caadiga isagoo fadhiyo oo caano israsiina. sidoo kale waxaa kusoo darsanay yaanyo shiidan. yaanyo iyo toon baa isku soo shiidanay. kamsarna waa kusoo shiidanaysa, maalinta kamsar iyo moolin. si fiican baa isku soo dhexgelinaynaa. biyaa ku daraynaa si uu hilibku inoogu jilco. markaynu daboolkaynu u jiidanaa, milixda aan ka ilaa waa ku daray. kadib goortaynu saas inoogu soo baxday muddo ah bay saarnaa, saanuu inoogu soo baxay. hadda diyaar buu inoo yahay. waxaa soo samaysanaynaa bariiska si qoto qotaa buu samaynaa. halkaa xawaash iyo saliid iyo milixdiisaan kusoo daray. waa soo shiilaynaa. isagoo furfur ah baa ka qaadaynaa si aanu hadhow inoogu jilcin oo inoogu huuri karo. okay, marka aynu saa samaysano oo uu saa bariiskii diyaar inoogu yahay, waxaa samaynaynaa suugadeennii baynu dhakada kaga daraynaa. lakabyada u samaysan karta, yacni intaad suugada kala qaybisid 2 lakab 3 lakab intaad doontid waad ka samaysan kartaa. laakiin aniga hadda qaabkana ay gala fudud, qaabkan aan ku haystaa suugadeeda barteeda ku jirta baan ku dul daraa bariiska. waxaa ku darsanaynaa sacfaraanka iyo sabiibta. saasuu diyaar ku noqonaya. cabaar baa isku huurinaynaa, daboolka u jiidaynaa. saasuu diyaar ku yahay bariiskani. intaa kadib cabitaankiinaynu soo diyaarsanay. bariiskina saasuu diyaar inoogu yahay. haddii aad halkan nala soo gaadhay aanad subscribe inoo saarin, naguna cusub tahay, fadlan subscribe inoo saar, aad baan ku noo caawinaysaa. sidoo kale videoga like inoo saara haddii aad ka heshaan. waa mahadsantihiin.